maamulka dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa maanta ka warbixiyay guryo ay sheegeen inay dayactir ku samayn doonaan oo ay leedahay dawladda hoose ee Berbera halkaas oo ay dhagxaan dhigeen isaga oo madaxweynaha Soomaaliland uu dhagxaan tiro badan u dhigay maamulka dawladda hoose ee Berbera wiigiina soo dhaafay waxaana ka warbixiyay dayactirkan iyo waxa uu ku salaysan yahay maayarka magaalada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar sanadka 2015 waanu qaadanay bilicda magaalada kor u qaadista iyo labalaabka bilicda magaalada halkaan joognaa waxa weeyaan waa lambar 3 magaalada wadada rooga ah baa soo gaari doonta sida qorshe marka hore waxa farxadii aruntii in maanta aan lafteedii joogno waa bilowgii mashaariicdii ayaantii dhaweeyto madaxweynuhu u dhagax dhigay faraha badnaa waa mashruucii labaad ee ku talagalka 15 ee ay fuliyaan golaha deegaanka degmadu dawladda hoose taasoo runtii wax weyn ka tari doonta ganacsiga geesta kalena waxa gabi ahaanba istaagtay jid laamiya oo toddobaadkii hore ay bilaabeen maamulka dawladda hoose ee Berbera waa wada 8 kiiloomitir asfar waxa kharashka 8 kiiloomitir kala barkeed ku dhow labada dhinac ee lagu talagalay bini'aadamku inuu kaga beero gaadiidka kan nahay maanta maxaynu hor joognaa maanta horumar hor joognaa lacagtiina ma ka marakacaysaan lacagtiina ka qaadi ma ka marakacaysaan kuwii sida xunu sheegaya ku dhintaan baan leeyahay jidkaasi oo ay sheegeen inuu dhererkiisu dhan yahay 8 kiiloomitir ayaa gabi ahaanba istaagsan taasi oo u muuqata inay u taagan tahay kharash la'aan geesta kalena waxa ay indhahaygu qabanayeen xashiis buux dhaafiyay qaar ka mid ah laamiyada iyo xaafadaha magaalada Berbera waxaana ay tani tahay deexadul hooganaysa maamulka dawladda hoose ee Berbera taasi oo ay u muuqata mid ay ku fashilmeen maamulka dawladda hoose xilkii loo igmaday Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Royal magaalada Berbera.